ninkaana waxaan leenahay ilaahay ka cabso ittaqillah ayaan leenahay ilaahay ka baq oo salaada iyo cibaadaadka iyo waajibaadka laga rabo la ima ganacsi iyo xoolo aad tabcatid wax ay ku tarahayaan malahan mar hadii alla ka cabsigii laga waayay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا walaalayaal barnaamij aan kusoo qaadan doono ama aan ku biirin doono aragtideena barnaamijka oo ku saabsan wareysi lala yeeshay Mustafa Martin. wareysiga oo ay kamid ahaayeen waxyaabihii oo ku sheegay sida tan soomin waan ogtahay inuu kamid yahay tiirka meelka muslimiinta oo Ilaahay quraankiisa ku leeyahay oo xataa uu sheegayo in soonku uu yahay wax soo jireenay waxa soo la socda arkaan islaamka waa la socda si wanaagsan ku dhameystir soonka iyo sakadii waxa la socda laakiin waliga ma soomin sida maqleysaan wuxuu yiri waligeey ma aanan soomin waana la socdaa arkaanul islaamka tiirarka islaamka ee shanta ah laakiin waligeey iskuma dayin soon. wuxuu kaloo ku sii daray salaadana maxaad tiri salaada waa tukaday goorma kugu damay salaad tukatay wallahi salaadan si sax ah u tukado istaba socota mala 20 sano ka hor baahay iyaduna okay waliga ma soomin laakiin salaada wadu 20 sano waliga ma soomin salaada 20 sano laakiin mar waxa jirta qoladan ganacsatada markay miisaanka galaan maartay inaan la galo oo la sii tukado laakiin si taxanaa ma tukatay macna waa duruuf ba keenaysa dadkii la socdo ma galaadna wad la gashay anna waa la galaa waan kartay sida maqasheen wuxuu yiri salaadna waxa igu dambeysay xilli aad dukado oo si toos ah u dukado muddo 22 sano ka hor ah. marka laba rugni oo diinta islaamka kamid ah ayuu sheegay in uusan la imaanin ama si toos ah oo la imaanin mid kamid ah waligii oo la imaanin oo ah soomka. sida uu sheegay wuxuu aaminsan yahay arkaanul islaam iyo inay jiraan iyo in quraanka lagu sheegay balse lama imaado oo ma sameeyo oo ficil ahaan ama practice ahaan uma sameeyo. marka arinta ayaan ka hadli doonaa. ugu horeen horta ninka waxaan leenahay ilaahay u toobadkeen oo acmaashaas waajibka ah la imaw. diinta islaamka waa yusri ama waa fudeed oo salaadaha aadan dukan waxa laga rabaa in aad waqtigaada galisid inta aad shaqaysanayso oo nolosha iyo wixii aad ku noolaaleed aad raadsanayso ma ahane inta kale inaad galiso salaadaha qadeyntooda ayaa waajib kuugu ah. deynta la soo gudo oo la soo qadeeyo ma ahan mid bini aadamka oo kaliya ee mid ilaahay ayaaba deemaha dhan ka mudan in la gudana loo baahan yahay. marka waxa waajib kuugu ah in aad waqtigaada galisid inta aad shaqaysanayso ama inta aad jiiftid ma ahan inta kale inaad galido ayaa loo baahan yahay oo waajib kuugu ah salaadahaas qadeyntooda iyo soo gudidooda. soomkana sidoo kale inaad soo qadeyso ayaa laga rabaa. taas ayaa ninka u soo jeedinaya ilaahay ka baq ayaanu leenahay sidoo kale to dambiga lala jahro sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ku sheegay lama cafiyo. marka taana ka waanto ayaa leenahay salaada iyo cibaadada waa wax adiga iyo rabbiga in ka dhaxeeyo. hadii aadan la imaanin lama imaado hadhiin dadka publica la imaanin weeyaan iyo social media. taana waa tala aan u soo jeedinayno insha Allah asaga iyo ummadda dhan ayaan u soo jeedinaynaa taladaas. midda kale waxaad arkaysaa dad ninkan la yaabahay arintiisa oo wax la yaabo ka dhigayo. wax la yaabo way tahay balse in sida loo buunbuuniyo ma ahan. sababtoo ah ilaahay quraanka wuxuu ku sheegay dad salaad la imaadaan haddana la cadaabayo. marka waran fawaylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraa'un. waadi cadaabad ayaa wuxuu u sugnaaday kuwa salaada dukadaan kuwaasoo alladhina hum an salatihim sahun kuwa oo salaadooda hilmaamsan oo salaada markay dukanayaan khushuucan u leeymanin oo salaada markay dukanayaan ayaga dhan baxsan oo aan salaadii ka warqabin. ilaahay wuxuu sheegay inay liibaaneen dadka salaada dhexdeeda ku khushuucan. qad aflaha almu'minuun alladhina hum fi salatihim khashi'un. khushuucaas
dad badan oo ka maqan yahay oo salaad dukanahayaan ayaa haddana inay salaad dukanin camal la mid ah. marka waxaan isku waaninaynaa in salaada aan baranno waxyaabaha ay ku ansaxayso, waxa ay ku buraysan aan ka fogaano oo aan iska ilaalino, khushuucaas aan la imaano. salaada faatixada oo kaleeto inaan baranno ayaa loo baahan yahay. macnaheeda in la iska aqriyo bis maahan, in macnaheeda lagu tadabburo ayaa la rabaa oo la fiirfiiriyo, oo qofka aayad kasta oo marahayo faatixada kamid ah in uu yaqaano waxa ay ka hadlayso oo qalbiga kala socda ayaa loo baahan yahay. balse salaad oo iga tirsi ilaahayow ah dee salaad ma noqonayso taas. nabiga sallallahu calayhi wasallam oo masaajidka ku sugan ayaa waxaa yimid ninkaabaa salaad buu galay. salaadii markii uu tukaday oo dhameeyey ayuu nabiga u imaado, nabiga ayuu salaamay. markaas baa nabiga sallallahu calayhi wasallam ninkii wuxuu ku yiri salli fa innaka lam tusalli, war orod bax ee tuko ma aadan tukanin. waa ninka hadda tukanahay. dhowr mar buu ninkii kusoo laabtay, markaas nabiga wuxuu ku dhahaa duko ma aadan tukanin. markaas marka dambe ninka wuxuu nabiga ku yiri ilaahay xaq kugu soo bixiyay ayaan ku dhaartaahe sidan ayaa u aqaana salaada. nabiga ayaa salaadii u saxay oo waxyaabihii laga rabay u sheegay. waxyaabahaasoo ay kamid ahaayeen ama ay ugu muhiimsanaayeen oo ninka inta badan ka tegahaya waxaa weeyaan waa xasiloonida salaada lagu xasilo. salaad ayuu wuxuu u dukanaya sida dooro biyo cabays camal ayuu u dukanaya bubsiis. marka ninkaas nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yiri tuko ma aadan tukanin. waa ninkii tukanaya. marka ummad badan oo waxaa jirto oo salaad tukanahayaan balse aanan tukanin oo lamid ah kuwa aan tukanin. marka kuwaasne waa isla kuwii quraanka ilaahay oo ku sheegay suuratul maacuun ama arayta alladii ilaahay salaadooda inuu ka aqbal iska dhaafay wuu cadaabahayaa. maxaa yeelay salaadii wixii laga rabay ayay la imaan waayeen kuwa. ninka iyo kuwa salaadaha ku ciyaarayaan oo salaadooda maaragtay iska dukanahayaan oo aan arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waajibaadkeedii aan baranin iyo waxyaabihii burinayay, waxaan leenahay barta cibaadada oo sida ay tahay ula imaada insha Allah, si salaadiina ay u noqoto salaad sax ah, cibaadadiina ay u noqoto cibaado sax ah. ninkaana waxaan leenahay ilaahay ka cabso, ittaqillah ayaan leenahay ilaahay ka baq oo salaada iyo cibaadaadka iyo waajibaadka laga rabo la imaa. ganacsi iyo xoolo aad tabcatid wax ay ku tarahayaan malahan mar haddii alla ka cabsigii laga waayay. barnaamijkeena insha Allah intaas ayaan ku sameynaa. siina share gareeya, channelkana subscribe saara insha Allah si khayrka iyo wanaaga aan soo galinayno oo idin soo gaaro. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.